Cabdiraxmaan Cabdilaahi Axmed Nuur Afweyn oo ka mid ah saraakiisha ciidamada difaaca ee Buuhoodle ayaa hambalyo iyo soo dhaweyn u diray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. madaxweynaha ayuu ugu hambalyeeyay xilka ay u doorteen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu ka hadlay taliyahani hadal ka soo yaray madaxweynaha maamulka Khaatimo iyo waliba xaaladda guud ammaanka gobolka Cayn, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. Cabdiraxmaan Farmaajo wasteed bisha lagu doortay magaalada Xamar laguna doortay rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo codka baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed. waxaan leenahay su'aashaas ala khayf u yiri waan arkin inuu cid ku raali gelinayo marka uu shir la lahaa. waxaan leenahay dadka deegaanada degan iyo ummadda Soomaaliyeed meel buu ka raali gelinaynaa maadaama uu gobolada ka soo jeedo. waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo qaranka ummadda Soomaaliyeed oo ka raali gelinaynaa. waxaan leenahay isagana waxa la soo qaadan karayaa cidii loo ilaa sano ka hor jiray waa go'an baa hambalyeysay. marka labadaas baa la iska rab dhigayaa. isagana waxa loo dhaariyay oo magaca uu sheegay loogu dhaariyay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo soo celintiisa oo liisanaag iyo Cayn qaybaha laga haysto ee Soomaaliland ay ka haysto. marka kii uu ku dhaartay ayuu ka hor yimid baa la oranayaa. cidii uu u dhaartay ee wax ka dhaxsanayeen uu raali geliyay oo iyadu ka leexatay dariiqa uu maray. dhaxalku ka tagay waa la ogyahay. wuxuu ka tagay dad kun ku dhow oo agooma ah, boqolaal dumar oo asay qaaday, deegaamada soo joogtay iyo meeyagle iyo meelo kale oo dadkan uu leeyahay oo la haystay baraka. dhaxalka uu ka tagay marka hore waa sidaa. waxaan kaga jawaabaynaa cali waxaan leenahay meel kasta uu tago oo dadka degan yahay ha ku soo dhaweeyeen agoomihii dumarkii asada sitay ee sida khaldan wax loogu sheegay iyo kuwii dhaawacmay oo wata sawiradii maalintii dhaawacmeen waa la hayaa. ninkii dhintay sawirkiisa waa la hayaa. ciddii hagaysay inta waa la hayaa. kuwaas baan leenahay ha u diyaar garoobeen, ha una soo baxeen mabda'a isaga dhaxalkii leedinka tegay ee uu cali khalif sheegay waa kaas. laakiin Cabdiraxmaan hadalkaas madaxweynuhu yiri dhaxal buu dadka uga tagay siiyay dadkiisa miya la oran karin wuxuu madaxweynuhu ula jeeday dadka Soomaaliland oo gobolada ma qusayaan miya taa loo tartamo karana deegaanka ma soo qaadin. marka hore hal su'aal isla waafaqno anuu cali khalif galay madaxweyne xilku ay markaa kuma aqoonsan. waxaan ku aqoonsan qoday Soomaaliyeed. maxaa dhacay? dadkii markii hore koobnaa ee magaalada yiraahdo saxdheer ku doortayna kumaan jirin. waxaan aaminsanaa mar kasta inuu Somaliland yahay. cidii aaminsanayna waa kusoo horjeednay waana markhaati oo go'ayaal badan waxaan ka helay cali uu ku socdo waqooyi hadduu waqooyi ku socdo idin garaafanin meeshu doonaya ka geli lahaa buu doonaya. marka waxaan ku leeyahay marka hore dhaxalka wuxuu uga tegay qofkii ciil qabay ee dhinac ka soo jeeday. dagaalka ka saar wuxuu ka dhacay magaalada waa la xusuusanaya. wuxuu ka dhacay deegaan qorlugu reebo lama doonay coodan la kumay socdo kumay duulaynin qalbigu kumay duulaynin habarhasha kumay soconin. meeshu ka dhacay dagaalku waa aan oo meel la yaqaano. systemkana maamulka ayaa iska lahaa. waxaan cadaynayaa waliba shirki ka dhacay coodanle waraaqis jeebkan hadda ku haya. beesha horta waxay tiri wixii gaade iyo naga dhintay mooyaane wixii kale maamul baa isdilayseen annagana waa naga baraxan yahay iyadoo qoraal baa la hayaa. calina taa wuxuu kaga jawaabay maanta xamar ka yimid koonfurna waxba looga yaalin dhul baa la bixiyo kama hadhi doono. isma hore oo qaatwaan xilka ka qaadna iminkana kuwaanu ka qaadayna wixii oo dhalidiya meel la isugu tagaan waxay u noqdeen aniga waqooyi ku socda. haddaan waqooyi ku socdana cid kale oo ku socota ma ogoli. garoonka marka hore waad ogtiin adduunka dhacday badan baa ka dhacaya. garoonku wuxuu ahaa halbowle magaaladan ay leedahay ama dadkan u leeyahay gobolada degan. waxaana loogu adeegsanaya si khaldan iyadoo lagu matalaya dadka. xaq waxaa loo lahaa in laga joojiyo hadda ka hor oo bulshada ay ka joojiso. ciidanka tallaabada qaadana markuu arkay oqaal iyo isimo iyo ningarbood iyo waxgarad iyo hooyooyinkii iyo dadka mustaqbalkiisa lagu tumanayo inay soo taagan xaq bay u leeyihiin. iminkana waxa xal aniga ii muuqanaya waa tan sheegay cali hadduu soo noqdo wuxuu doonaya hal qodob horta marka hore. halkaa qodob wuxuu ahaa inaga dhibaatada gudaheena ka dhacda ayaa inagu dhiba laakiin wixii inaga baxsan ee cid lagina kala gaaraa waa wax ka baxsan.
hal la ilaaliyo marka hore wixii uu doonayay oo in badan dad badan indhaha ka leexleexinayay oo isku dhac gudood iyo dhulka inta hadhan oo Soomaaliland la soo gaarsiiyo oo ay ku cadeeyeen maamul fidin waxaan hadaan su'aal kale ka weydiiyo aan ku weydiiyay su'aasha koowaad waxay tahay halka aan isku dhac rabaa Al Khaliif garoonka markii ciidamadu ay soo taageen iyo markii heegla ka dhacday aaga xamar wuxuu rabshado ka dhacay Al Khaliif wuxuu ciidankii xabad sirrid miya la oran kareen isagu wuxuu ku dadaalay in aan xidhin Al Khaliif oo arinta نوب خشقي أنا هل قدر كوسع إن جوارد تكنيكية جرون كشوفتي خل بقول عوامل حبض كل إن جوارد اللي كده وأنا هكذا سكنا صفنا ما أنا شيء ولا يقانا ونمن شو جمانة النوب قداوة أو حقيقة وي ما كعدي أنا مثلا حبض ما يفيد القرار راسي حبض الحياة كمان إن حاجة ما يهطع سويدار بيهاي الموجود أنا قلت محمد مجرد شو يعني أنا بقول كده نبى ما أنت أنا عمل كده مرة أنتي رجع هوشة جريمة كملها لكن إذا كهل تارجت بولها وحي برشلو كأمستي بونا عديني قلب كلام كل شيء ما كأنه حقيقة ولا هذا تذكر سلبي قد ما يعرفون استوي هذا